horta marka u horeysa shacabka ku nool gobolka Banaadir in xuquuqdooda asaasiga ah ay helaan oo muhiim laakiin shacabka in la khaldo oo la siyaasadeeyo oo xuquuqdooda la siyaasadeeyo ma aha waxa ka horeeya gobolka Banaadir in kuraas la siiyo shacabka ku nool gobolka Banaadir in ay doortaan gudoomiyaasha degmooyinka ay doortaan maayarka oo maayarka maalin walba loo soo magacaabaya iyo gudoomiyaha gobolka maalin walba loo soo magacaabayo laga joojiyo kadib ay Muqdisho dastuurka soo qabo in Muqdisho maqaamkeeda lagu soo saaro dastuurka dadka waxa marka isaga dhax khaldan aqal sare inay Muqdisho hesho in Muqdisho inay hesho maqaam wala arrin oo kala laba Muqdisho waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya xaqna waxay u leedahay sidoo qabo qodobka 72 ee dastuurka waxa uu leeyahay aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 54 waxaan lagu saleynayaa 18 gobol oo sal u ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka kooban tahay gobolka Banaadir hadda adduunka markuu system federaal qaato waxa hadda isku dhex jira caasimadii iyo gobolkii iyo ina caasimad ahaanayso Banaadir ina gobol ahaanayso ina caasimada gobol isku jirtay ahaanayso in dastuurka lagu qeexayo marka hore markaas waxa ka soo baxaya maxay noqon kartaa nooca ay qaadanayso laakiin waxa yara moodaa in laga shaqeynayo in lagu kambeyn gareeyo iyadoo 3 bilood ka dhiman tahay xilligii doorashada ka dhaxgalay xilligii doorashada iyadoo 3 bilood ka dhiman tahay way 4 sano looga hadli waayay dastuurka lagu soo qori waayay 4 sano 3 sano ugu dambeysay Muqdisho maqaamkeeda meel loo saari waayay kadibna mataladeeda meel loo saari waayay ee loo baahan arrin siyaasadeed weeye waxay u baahan tahay waliba dadka inay fahmaan u baahan oo hadda la soo qoray in Muqdisho aqal sare la siiyo waxa u baahan tahay dastuurka qodobka 72 in la jibiyo oo tiro dheeri ah lagu daro qodobka u soo laaban doona laakiin adiga mowqifkaagii waxba kama bedelin soo maahan wixii maanta ka dhacay Muqdisho aniga horta waxa Muqdisho maanta ka dhacay waxaan u arkaan kuu sheegayaa Muqdisho maanta waxay ka dhacay waxay ahayd waxaan qurux badneen waxaan u qurux badneen saad og tahayba xilli corona lagu jiraa xilli diyaaradaha localka ay xiran yihiin baa lagu jiraa xilli masaajidada aan lagu tukan karin ayaa lagu jiraa xilli magaalada Bandow ay tahay oo dadka ganacsatada ay kulli ay xiran yihiin baa lagu jiraa xilli jaamacadaha iskuulada ay xiran yihiin baa lagu jiraa iyadoo jaamacadaha iskuulada ay xiran yihiin iyadoo masaajidada aan lagu tukanaynin iyadoo corona la iska ilaalinayo in dad shacab intaas la eg la soo saaro waxay khatar gelinaysaa dadka caafimaadkooda in halis la geliyo marka nolosha dadka ayaa ka muhiimsan kuraas marka waxaan qabaa in dadkaas in caafimaadkoodii iyagoo loo faa'iideysanaya siyaasad in khatar lagu geliyo sidii aad shalay u wajahdeen hadal jeedintii madaxweynaha adiga iyo xildhibaano kale ma weyseen si ka habboon oo aad dareenkiina ku cabiri karteen waan weynay horta dareenka markaad tahay xildhibaan qaran aad tahay dareenka siyaabo badan ku cabiraysaa golayaasha annaga wax badan baan kaga hadalnay xaaladda waddanka uu marayo duruufaha waddanku uu taagan yahay qalafsan xaaladda siyaasadeed xaaladda amni xaaladda nololeed xaaladda gobolka Banaadir shacabka cunaqabateynta saaran ee gabdhaha wadooyinka u mulaya cunaqabateedada la saaray maamulgoboleedyada qaarkood duruufaha siyaasadeed waddanka ka jira in badan oo baarlamaanka la geeyay laga dooday waa la dhageysan waayay madaxweynaha marka annaga waxaan rabnay maadaama khudbadii ugu dambeysay ay tahay baarlamaanka muddaxileedkiisa uu dhamaanayo ayaan waxaan u baahneen inuu dareenkan dhageysto ama khudbadiisa ku soo daro xaaladda dalka uu marayo madaxweynaha markuu ka baaqsaday markay xildhibaanada qaarkood la hadleen ee mudane madaxweyne arrimaha waddanka uu ka taagan yahay inaan ka hadashaan rabnaa ayuu halkaas ka sii watay taas ayaana keentay xildhibaan inay dareenkooda cabiraan waxaa la sheegay inaad ahaydeen 4 xildhibaan oo golaha ku jiray kuwaasi oo sameeyay buuq iyo sawaxankii shalay ka dhacay furitaanka la fadhiga 7 ee baarlamaanka aqlabiyadda baarlamaanka maxaad u xurmeyn weyseen xildhibaan xasan horta hadda 4 xildhibaan ahaan 4 xildhibaan horta buuq ma sameyn karto meesha waxaa fadhisay 200 iyo xogaa xildhibaan baa fadhisay 4 xildhibaan hadda buuq sameyn karaan way sameyn lahaayeen xildhibaano badan aad u tir badan baa xildhibaanadii TV-gan waa daawan kartaa video uu duwan yahay iyadoo waliba saxaafadda laga jaray haddii 4 xildhibaan ahay maxaa saxaafadda looga gooyay markuu hadalka bilowday xildhibaanada qaarkood waxay qaadayeen Soomaaliya way qaadayeen qaar miiska garaaceen way buuqayeen qaar firimbiyaal bay yeerinayeen way kala duwanaayeen dhowrka qof waxa laga soo qaatay marka laga yaabaa inta ugu cod dheereed baa laga soo qaataa laga yaabaa laakiin geeska gees xildhibaanadu way dhawaaqeen wayna buuqayeen muddo hal saac ka badanna madaxweynaha hadalkiisu waa kisnaa idaacadaha dhan waa la gooyay University TV ee ka mid tahay ma tawin karin وحنا والله غير تيفيدو دن ولي ورياش marka dambe kaamirooyinka laga qaatay waxa la matawin kartaan marka waxa meesha ka dhacay waxa la soo gudbiyay aad u kala duwan inta moobilada lagu duubay ayaa hesheen way marka adiga filim bayaad yeernaysay waxa la maqlay gudoomiyaha baarlamaanka oo
ku dhahaya jooji xildhibaan xasan yare firimbiga maxaa ku kalifay inaad sidaas aniga keligay filimbi ma yeerinayno horta filimbigu xildhibaano badan baa filimbiyaal haystay qaar miisas bay garaacayeen qaar soomaali soo soo bay qaadayeen qaarba nooc bay ahaayeen laakiinse waxaa laga yaabaa guddoomiyaha markaasi inaan taagnaa ama in indhahayga asaga ay qabteen markaas kusoo dhaceen baa laga yaabaa magacayga saas u sheegay laakiinse aniga keligay ma ahayn dadka dareenkooda muujinaya xildhibaan aad u badan oo labada golo ah oo ka kala yimid dhammaan dowlad goboleedyada puntland jubbaland south west galmudug ayaa dareenkooda muujinayay marka wax aniga gaar ah ma ahayn waay madaxweynaha soomaaliya waa madaxii ugu sarreeyey ee dalka dad badan ayaa aaminsan in dowladdu ay wax badan qabatay isaguna uu ka sheegay shalay furitaanka la fadhiga ee toddobaad maxay tahay waxaad u arki la'adahay dadaalka iyo guulaha intaa leeg ee dowladdu gaartay ee aad u dhaliishan tahay hogaaminta madaxweynaha soomaaliya waa su-aal aada muhiim u ah aan rajaynaya waqti yar in ay siisaan kaga jawaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku imaaday nationalism qodobka ugu horeeya wadaniyad buu ku imaaday oo anti etoobiya oo la socota markaan dooranaynin waxaan ku dooranay nin nationalism oo soomaaliya wadaniyad baa lagu doortay wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee muwaadin soomaaliyeed intuu jeebeeyey etoobiya u dhiiba urur wadani oo soomaaliya aan argagixiso ku tilmaama waxaan ku dooran wax ka duwan buu la imaaday wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya 4 dekedood etoobiya u saxiixa oo ra-iisul wasaaraha etoobiya intuu imaaday siiyey wax admayn xasan weli asagaa sheegay 4 dekedood in etoobiya maalgashanayso oo ay ka shaqaynayso way duuban tahayba waa madaxweynihii ugu horreeyey oo u adeegsaday local election doorasho ka dhacaysa waddankiisa gudihiisa madaxweynihii ugu horreeyey u adeegsaday beedhow waxa ka dhac waa la socotaa oo xasuuq ka dhac waa la socotaa waa madaxweynihii u adeegsaday kismaayo wixii in laga sameeyo rabay waa la socotaa way qoranta way duuban tahay in afgambi inuu ka dhacal rabay ciidamada shisheeye loo isticmaalayay dhuusamareeb wixii ka dhacay madaxweynuhu u adeegay awood military u adeegsada dhuusamareeb ee ahlu sunna wal jamaa waa la socotaa waa madaxweynihii aan ka hadlin diyaaraddii ku soo dhacday aan lagu riday baan rabaa magaalada bardaale ee Amazon ay sheegeen in iyaga inaan shuqul ku lahayn ilaa hadda madaxweynaha uu soo qaadin waa madaxweynihii aan ka hadlin xasuuqa ka dhacay shabeellada dhexe waa madaxweynihii 4 sano uu joogay hataa khudbadiisa aan ku soo qaadin badda oo 4 jeer dib loo dhigay aan soo qaadin waa madaxweynihii aan dhameystirin dastuurka waa madaxweynihii aan dhameystirin hay'adaha garsoorka aan soo dhisin waa madaxweynihii ku laayay magaalada muqdisho cabdiraxmaan cashukuuri dadkii si loo laayay la socota waa madaxweynihii wixii loogu talagalay waddanka waa madaxweynaha waa astaanta midnimada qaran madaxweynaha waa isku hayaha dowladda federaalka ah waa la socotaa somaliland lama hayo ra-isul wasaare abiy igeebu yiri waa la socotaa puntland ilaa hadda deni muun imaan xamar xasan ibar buu madaxweyne yahay jubbaland xiriir ma laha ilaa hadda shirkii amniga uu dhici lahaya wax allaale wixii loogu talagalay astaanta qaranka dowladnimo madaxweynaha inuu qabto wuu ku fashilmay sababtaasaad ku mucaaraday sababtan ku mucaaraday intaa aad tirisay inay yihiin xumaanta uu leeyahay inta wanaagii uu sameeyey ma noo tirin kartaa waxaa la sheegay waa 2 qodob wuxuu madaxweynaha uu qabtay qodob kale ku daraya waliba uu ka gaabiyo aad inaan u sheego u baahan 4 sano dawladdan ay joogtay degmada Janaale mooyaane hal degmo goor shabaab laga xoreeyay ma laha shabaabku way nastaan wax dagaal laguma qaado magaalada muqdisho canshuur bay ka qaataan Soomaaliya canshuur ka qaataa ka warhaysaa wax dagaal ma galaan dagaal laguma qaado 4 sano magaalada Janaale kaliya ayaa laga xoreeyay wax degmo laga xoreeyay magaaladaas kaliya ay deegaan dhowr gobol ka tirsan waa tuulooyin wax laga hadlay degmo ka hadlaya degmo la sheegi kara oo maanta xur ah ee ka xoreeyaan 4 sano uu joogo degmadaasi Janaale la dhaho waxa ku soo haray 2 arrin baa la sheegay kaliya deen cafiska xukuumadda ka shaqeysay iyo mishaar baan bixiyaa labadaas baan haynaa wax kale oo aan hayo ilaahay ugu wareemi jirto waxa la sheegay in dawladdu ay sidoo kale soo celisay qabkii iyo awoodii dawladnimada Soomaaliya isba kuma muuqato arinta aniga waxaan qabaa dawladdan inay godku ku riday qabkii ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah waa dawladdii ugu horreysay ummadda Soomaaliyeed dhibta waana dawladdii ugu horreysay ciidamo shisheeye oo nan Amazon u adeegsata muwaadiniinta localka ah waana dawladdii ugu horreysay oo qabateen saartay shacabkeeda oo diyaaradaha ka xanibta oo walaal ku dhalaan marka 2 qodob kaliya inay dawladdan qabatada aaminsantaado mid waa waajib saaranba waxa weeye mishaarada inay bixiso si la sheegay mishaarada bixisaa leeyahay waa waajib saaran waxa hadda amaan uma laha mid kale ma la leeyahay ma way bixiso adaa markaati ka mishaaraadka aniga intaan ka warhayo way bixisay waa maasanta ma qodob kale muxuu yahay qodobka deen cafinta ilaa hadda natiijadiisa aan la haynin oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen iyadoo ku amaanan yihiin amniga caasimadda sida muuqata isbedel ayaa ka jira muddooyinka dambeeyay xildhibaan xasan miyaanay ku muuqan arintaas magaalada muqdisho gobolka banaadir inta madaxweyne farmaajo joogay xasuuq ugu badnaa magaaladu ka dhacay waay 14 October waxay dhacay waad ogtahay waa wax ugu weyn xamar ka dhacay noqotay 14 October waa la socota naasaha bilood wax ka dhacay waa la socota baarlamaanka aan ku shirin wax ka dhacay waa la socota maalmo bahoobiye in lagu garaaco xalane bishan aan ku jirnay inta ku dhacayso hooyaal waa la socotaa
in madaxda al-shabaab ay ku sugan